قوانا مقعد والدينا وغرفة أبا مقعد عالية علي أبا قبصرت في عنو عشاء داي هيا أبا إنه علاقبتين توبك الصومال اللي قاعد سوارتها والله بلا عاد ونفسنتها سبب واي Soomaaliya mar walba cadow ay leedahay in iska dhiciso waxay sato wanaagsantahay marka hubkaan wadma shay iska dhicina ha laakiin saanaga in isku soo jeesana ma wanaagsana qabiil la gaab caqdad ku jira hubka gacanta u gala karo dadka laaya ya sheego kala dad kale la dadku leeyla cunaqabateynta Soomaaliya maxay tiri cunaqabateynta hubka in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka oo saarneyd Soomaaliya in laga qaaday sida warta waxa uu arkaa ku sheegaya kuwii hore waa isku dhameynay kuwa kala noo soo daray is dhameeyo weeye adeer macaan ma garatay hadda caadi caadi isku dhameeyno hadda ma taageersan waa ugu yartahay taageersanta waa taageersanaha qabiilka huma soo gateen kulli dadka dhan way soo wada gateen haye waka gacanta la isku tago arinta ayaa ka dambeeya arintaas xasiiq maxamuud ma xasiiq maxamuud ka baxa adeer xasiiq maxamuud baa ka dambeeya in hubka la safsaxa isaga ka dambeeya wuxuu damacsan yahay in isku dhameeyno gabi ahaanba ما هو لكن دولة قاعد كوين الشعب قاعد تقوم قليل دولة بتشير تعذر مع واحد كلام شيء يسألنيه دولة بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين عناقبتين تهبك الصومالي لا يقعدوا رنتي أنا أقول شخصيا يدتك إلى ركتي أبا وحن وارجنا إن تهاي مصيبة وين أو مد الصومالية كوها ستي هرسيدي كرتا وقت أدق iyo duruufaha adag oo la soo maray in dib loogu noqdo sida ognahay ba dadka Soomaaliyeed waa bulshada dirtay qabaa'il ah hubaysnayd xilligii dawladda kacaan kadibna hubkii dawladda isku gumaaday hafiniya wax ka badan ba Soomaaliya iska leysay ilaa haddana mushkiladii qabaa'ilka iyo dhibaatooyinka dagaalada sokeeye ma xalismin marka rajadii la qabay oo ahayd in waddanku soo fiicnaan doono waxaan filayaa in hadda god ay ku dhacday maadaama iyadoo ka 47 45 dagaalka labaad adduunka lagu galay iyadoo la isku dhameeyay waxaan filayaa natiijada ka dhalan karta hub casri ah oo 2023 ah haddii waddanka la keeno dhibaatada ka dhalanta inta la eg tahay dadkani waa dad mataqaanaa qabaa'il ah raas iyo qoys isku laaya muddo badan mataqaanaa colaado soo jiray oo ka dhashay dhulal iyo guryo iyo ka dhashay xoolo geel ka dhashay isku qaba dawladana dawlad xoog badan oo hubka ilaalin karta ma ahan oo waxa hadda dhacday in hub deeqa loo siiyay dawladda ay ciidan kale gacanta ku dhigtay la wareegtay marka waxaan leeyahay runtii ma ahayn xilligan oo kale in loo ogolaado waddan sidaan oo kale ah oo soo koraya in hub uu soo gadan karo waxaan dunida ka codsanaynaa inay cunahana hayaan sida cunaha noo hayaan aysan cunaha naga fuqin wax cunaha laga fuqo ma istaahilo dad burbursan baanu nahay dad baabaayo baanu nahay annagaa soo yeersanayna marka dhalinyarada hadda dhammaantood sas baa ku dhacay sababtoo ah iyagoo rajo yar qabay hadda mid walba wuxuu ka fikirayaa meesha uu tahriibi lahaa sababtoo ah ma muuqato yani fursad yarta muuqatay iyo deganaanshaha waddanka ahayd waxaa moodaa in biyo lagu daray oo la xumeeyaa moodaa marka waxaan leenahay waxaan ka codsanaynaa dawladda cid kastoo oo mataqaanaa saamayn leh caalamka codsanaynaa in anaga cunaha saan loo hayo cunahana la ka fuqin hadday cunaha la ka fuqo annaga isku jeensanayna hubkaasna uma baahnin dadka kan waxay u baahan yihiin dawlad rayida oo degan oo qabow si mataqaanaa tartiib ay u soo noolaadaan bay u baahan yihiin marka waxaan leeyahay runtii wax laga naxa weeye habeenkii markaan subax marka soo kacay baan ku arkay baraha bulshada runtii aad baan mataqaanaa u nahay maalintii dhan baa waa sasnaaba والسلام عليكم hubka waxaan ka baqayaa in gacmo qabiil ama cid kale uu gacmaha u galo oo sababi karta in dadka Soomaaliyeed qabaa'iladu ma kala awood badna ma garatay ka fadhisan ba everest ka dhigeen laakiin hub waaweyn hadii la soo dejiyo ama baabuur ka shaaman ama baabuur ama diyaarado ama wax la mid ah ama qoryo waaweyn la keeno waa isku dhameynayaan waxaan malaynayaa dunida inay leedahay laakiin waa isku dhameyn weydeen hubka waaweyn ay isku dhameysaan bayasiinana ay leeyihiin amal marka runtii khatar baan dareemaynaa cunaqabateynta hubka Soomaaliya laga qaado shacabka reer Mudugana aad bay uga naxeen arrinta dadka badankoodu waxay leeyihiin hubkan wuxuu gacanta u geli doonaa gacmo qaldan ku dhameyn doona ma garad waxay leeyihiin yani shacab uu gacanta u galaya qabiilo gacanta u galaya qabiiladana si fiican bay isku xasuuqayeen awal hore isku xasuuqeen naytuwankii waa la ogaayo hubkii dawladda marka burburay hubkii dadka isku xasuuqeen cunaqabateynta Soomaaliya waa laga qaado adiga ra'yigaaga doctor magacaaga noo bilow
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdulladiif Cumar Warsame ra'yigayga su'aasha ay weydiisay waxaan u arkaa arrin guul ah ama arrin farxad ah oo Soomaaliya u soo hoyatay maadaama laga qaaday cunaqabatayntii taasina waxay markaa Soomaaliya la tartamaysaa dawladaha dariska ah inay hesho hubka noocyadiisa kala duwan ee waaweyn waxaan rajaynayaa Soomaaliya inay hesho aqli ku filan oo hadda waxaan filayaa inaan laga baqaynin in hubkaasi qabaa'ilo uu gacanta u galo oo sidii ilaa 91 aan la isku laynaynin maxaa yeelay Soomaaliya way aragnimo badan oo ilaa 30 sano ka badan bay haysataa oo shacabkeedii dadkeedu dib in ku filan waa soo arkeen marka waa ra'yi fiican baa leeyahay ama guul Soomaaliya u soo hoyatay ayaan leeyahay in cunaqabataynta la qaado dagaalkan gobolka Sool ka socdo dadka ku baabeen dadka ku dhamaadeen waxa la leeyahay Ethiopia ka dambeysay Ethiopia carabta inay seelac si fudud ku qaadato Soomaaliduna marka hore ay gacanteeda isku dhameeyaan adduunkana hadda waqti casri ah la mariyaa waa laga tagay siyaasadii waddan inuu ku duulo waddanka marka hore dadkiisa la isku diraa markay is dhameeyaan si easy lagu qabsadaa Ethiopia ciidamo bad bay samaysatay arrintaas maxaa ka leedahay wala Soomaalida inta aqliga leh waa arki kartaa hadda Ethiopia iyadoo bad lahayn waxay ciidamo badeed u samaysanayso waa damac kulli kaga jira badaha Soomaaliya Soomaalidu ayaga la rabaa inay isu tanaasulaan oo dagaalka iyo burburka ay joojiyaan ayaga la rabaa inay dantooda gartaan ayaga la rabaa maadaama aysan dad yar oo 40 milyan gaarin hadii la buunbuuniyo ay yihiin inay ka adkaadaan danahooda iyo masiirkooda isu tanaasulaan ilaashadaanna waxa ka dhaxaysa ee dadnimada iyo wada dhalashada iyo ehelnimada iyo diinta iyo dalkaba marka waxa la doonayaa in Soomaaliya inay soo arag iyagu cadow ee arkaan cadowga dibadda ah iyo dhibaatada uga imaanaya dawladaha dariska waayo dhismahaaga iyo soo kabashadaada iyo in adiga waxa weey in yar horumar aad ku tilaabsato cid ogoli ma jirto marka Soomaaliya ayaga laga rabaa inay is arkaan ama dadka Soomaaliyeed dhamaantood aywa ma santaan tar aad baa maasan cunaqabataynta hubka in Soomaaliya laga qaaday see u aragtaa aad weyn waa soo dhaweynayaa waxa u soo dhaweynaysaa waxa u soo dhaweynayaa maxaa la jiray hubka ugu horeeyo oo aan la soo degay dekada garacda kala soo degayaa braa haye ka bacdina ka bacdi xaga ay booqiyo maxaa la jiray ilaa gaalkacyo waxa kala soo degayaa baha kaaraha qabiilo badan marka waxa la hubkan gacanta qabiilo u galaya wala isleynaya aad weyn wala isku baaba'aya aad weyn arinta Ethiopia ka dambeysay maxaa ka ogtay Ethiopia waa soo dhaweynayna iyada laftirkeeda ka bilaabayna hartigii isaaq in Islaayaan Ethiopia ka dambeysay sir baa fashilantay documentarial baa la helay maxaa ka ogtay arinta maxaa la jiray waxa la jiray qabiilada Soomaaliyeed degan qabiilada u kaliya gacanta qabiilo u galaya sida loo kala adag yahay baa hubka la isku dhameynaya marka waxa la qabiilada la dheereeyay dadka ewer ka dhigayaan ya qabiilada la dheereeyay dadka dhameynayaan aad weyn waxay tagaysaa qabiilkee lacag haystaa iyo qabiilkee hub gadan kara haye ka bacdina de baabaha la iska dhigay arrintan waxa ka dambeeya niyow dawladda shisheeya ka dambeeya sida hadda dawladdeena badda Ethiopia dawladda goobaysa inay badda Soomaaliya qaadato waxay rabtaa inay inta Soomaaliya oo dhan gabagabayso oo baabiiso oo hub ku baabiiyaan in ay badbadii Soomaaliya la wareegaan oo wadanka cidla qaataan Soomaaliya inta isku marayso Soomaali waa doohalay weey marka qabiiladan walwala hadday hubka gacanta ku dhigaan taangiyaal iyo qabiilkaaga hadda nuclear bi soo gadan rabaan baa maqlay dawa hub walaalow arrintaasi waxaan u arkaa arrin ay Soomaaliya maanta ku degdegtay inay tahay sababtoo ah iyadoo aan laga fiirsan in hubkaasu maantay meesha uu gali lahaa dal xakamaysan maantay Soomaaliya kuma yaalo sababtoo ah wadanka dhan baa wuxuu noqday qabiil madax ka saaro hadhow yaa la soo aadaya qabiil kale la aadaya Soomaa marka wadankaasu waxaan leenahay hubkaasu dib eegis weyn lagu sameeyo